إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله وحده وحاجريو ذي شيخي عالمك أها أمد الصوماليات إلهي علمي سكو أنفعي وإنتاس أو كن أو قف كأفلح ذي ودين الإسلام كبرتي شيخ محمود علي وعيس شيخ وان جعلان بل سوحا نقد جعلا ذي الله الدنيا ذا نلقم واريو وهدي الدنيا ذا لقم واري لها خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيان نولا لها وان دمالهن مصيبة داس أمد إسلام كود عضي إلهي كصبرها نقدقو شيخنا وحان ودعينينا إنو إلهي ذنبي سدافو ونا حريستو وقبري سأواسعي وننوريو وغاندقو روضة من رياض الجنة بيرك مذا بيرها جنو إلهي شيخي إنو ونا حريستو وجندي سجليو عذاب لآن يحساب لآن أيان إلهي أوديننا إن شاء الله إلهي شيخ قداشي سنمفدنايو بدل خير قبل إلهي هنسيو هذا وحن سوق بيننا إن شاء الله رج علماء أو أجلاء أو واوين أو شيخ كتعسيريان كبو شوعا إن شاء الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. حبيب كاني شيخاني وقالق أهاشا محمود علي وعيس الله الرحمة الله عفيو الله نوضع عفيو جندين الله نغو كل ميو وحنو تعزيين هي تعزي قدره هي شيخ أهل كيسي أولاديسي أقارب تيسي أحباب تيسي تلاميذيسي كل جود وحن ليهي أعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وغفر لميتكم بان ليهي موت العالم حديث بوها ننك عالم كجريديسي وعالم كأردنتيون مركا ومصيبة في الدين يبر لغانيسا آخر الزمن كي دتكي أجلدا أها عالمين تأها عاملين تأها عارفين تأها بدن كودا ويتاجين عندنا صداس أوكل وان هلالينا شيخ صبري إيمان الله نغسيو كمردمن أهلكي أولادي سي أقاربتي كليا كمردمن أهل إسلام أطلبوا كرلنتي مركز صبري إيمان الله نغسيو وبالله التوفيق. باركم الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد علي وعيس قبري سيدول تاغنا هي مالين بقول بالدول تاغي هي دتكو وحكوا هي halkan معنا عبد الرحمن شو عمر إله أنك maantay martiqaad ina dambi dhaaf ugu martiqaadid quudaraynta aan quudarayna wax walba ka weyn midda halkan aan ka rajaynayna annaku aad bay u weynaan badan tahay شيخنا الشيخ محمد علي وعيس أصبوا هرتا موت كهذا ودنتي شيخه وموتكي أنا لصوص كرادين وأنا ساسا أخير بدن لوتكيس يأهل كيس ساسا أخير بدن قفكو هدي وياهي قف اسموج وأن مستعد أنا هين وها أخير بدن إنه سوتش رد إنه اسفهمه مستعدين تا الشيخ محمد علي وعيس إلهي أدوميه سيهور وجدكو ذي كل راعي ساسا وخير بدن مركا كوباد مسلمين شيخ إهلديسي إنتانا أتعزيين وحان أتعزيين إن أمد الصوماليات أف صومالي قاس ماشي اللوغة الله وحان أرقني الدنيا دان باندول كامان آد وبحبحي إتوبيا يأد السببا ينتقي يمن يوحان تقي ماشي ليا قريم ينتقي ميلا بدن وبحبحي meel ilaahay oo af Soomaaligaas una malayn maayo inta Carabiga ku hadlaysana inay ka sahlan tahay af Soomaaligaas meel looga hadlayo cilmigii Sheekh Maxamuud Cali Wacays oo nooc walba leh baa soconay saas u soconaya asagoo masjid walba iyo meel walba saa u soconaya buu soconaya sheekhiisi Sheekh Cabdullaahi Cabdi buu ku dayday ilaahay wuxuu ku arzuqay cilmi dhagaxanta lagu dhuftay ilaahay samada
iyo ardada isla qabsaday baa ilaahay ku arsuqay oo haddana cilmigaasi naafic ah baa ilaahay ku arsuqay maanta sida loo sameeyey sheekh maxamed cali wacays ilaahay meesha uu gaarsiiyey waa meeshii sheekh maxamed guuleed uu ka yiri qabriga sheekh yuusuf asagoo dul taagan war maxaad leedihiin sheekh yuusuf buu yiri markaas hal mar waxay ku dhawaaqeen wax kale oo idinku baad oran kartaan ma jirto wajabat lahu aljannatu inaad ku dhawaaqaan cirka kala dhawaaqaan marqaatina saasaan ka nahay muslimka ilaahay iyo aqoon qofkii uusan gaarinin waa haddaan waxaan xabaalnay sheekhiisii sheekh cabdullaahi cabdi kelimad yar oo ka yiri asagaa loo dhiibay asagu kalimaadka inuu dadka ku wareejiyo jeclaa kelimadii asagu ka yiri sheekhiisa haddii la damcayn la sheego hal kelimay ahaydo asagana ayadiiba u sheegay waa ilaahay addoomihiis isjid qaaday wuxuu yiri sheekh cabdullaahi horta waxaa ka horeeyey nin macallinahoo aad u hadlay habeenkii aad u hadlay baa ka horeeyey dalkan aan joogna buu yiri sheekhyaalka jooga un ma badnan ama maba jiro ilaa un laba kasta xoogaa waa isku hortay kacbaa la siiri buu yiri ilaa sheekh cabdullaahi cabdi maahana weli qof isma qortugin weligi dariiqiisii buu raacayoo shaygaa ilaahay oo xaqaa ma arkay qofna kuma haysaba sheekh maxamed sheekh cabdullaahi cabdi markii inta loo keeno la yiraahdo dad isku haysta shay mas'ala ah wuxuu oran jiray mas'aladu haddaysan si rasmi u dhacaynin ee dana kala jiraan هي ودادة الدنيا اسمها حسان الدين اسمها حسان رجدا بورنتي جدكي سيبو راعي إلهي حقي ساس اسكقاضو مسلم كدعاء جدكي سيبو راعي وحيي مرك كلمة يجربها وحي هاي ننكاس الدنيا قلبك سمدقين مركز كلمة كان لك الدبن بري الدنيا قلبك سمتعان بير ننكاس ور الدنيا دو يسن قلبك إذن كدقين بير وحو كدبن بري مركب وردين كإسلام وروا لقى تريبي الدين وعقصنا يا الله وارنتيس markuu saas laha qalbigay waxa ku soo dhacay masaajidii sheekh maxamed cali wacays cilmigi uu akhrin jiray hadda wuxuu marayay oo uu saas u waday oo la oran jiray war mudaharaad baa maanta meesha ka jira waxyaabo yar yar oo duuduub ah inta iska noqotay baa diinkii waa laga jeesay tacliintii diinka waxa lagu bedelay buu yiri tacliintii adduunyada war waxay ku yiraahdeen buu yiri sheekh cabdullaahi cabdi bay waxay ku yiraahdeen buu yiri war balaayadan iyo iskooladan iyo waxaan waa gaalnimo waqti diintii lagu bedelay waa gaalnimo ku yiraahdeen buu yiri markaas buu yiri argaalnimo ma ahana waa geel la raacsaday buu yiri geel bay raacsadeen oo adduunyo u tageen ka soo tago wardiinka buu yiri diinka marka sheekhana sheekh maxamed cali wacays hada kelimad kale ma sii dheeraynayo ilaahay waa uga marqaati kacnay meeshaas maanta ilaahay waxa baan boodaa hadda anaka nafteena ilaahay raxmadiisa inta noo furo qurxana ma joogno cadar iyo meelan joogno ma taqaanin ilaahay baan ma dhaaftiisa rajaynayna kelimadii iyo wixii dhamaan dadkan wax ka raaliya laga arabo way iga soo xirxirantay wassalaamu calaykum rabbi kelimada jeedinahana waa iska aamuseen wa rahmatullaahi iminkana waxaan idinla wadaagaynaa sheekha geeriyooday sheekh maxamuud cali wacays asaga oo ka tacsiyeynayay sheekhiisii sheekh cabdullaahi iyo dardaarankii sheekha oo ummadda islaamka ama ummadda soomaalida la wadaagay ee ahaa in cilmiga la barto ka bogasho wacan insha allah wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu adduun iyo aakhiraba fadlooda iyo khayrkooda allah nasiiyo saa sheekhaas daliilka u weynayseen ilaahay inay weynayo dunuubtiina allah dhaafo waxa culimadu sheegayaan axaadiis lagu sheegayaa qofka wax lagu amaal mariyo waxa ugu horeeya dadka aaskiisa ka qayb gala ilaahay inuu dhaafo ilaahay inuu dhaafo asagana darajaad waaweyn ilaahay asiiyo diisa allah ku isticmaalo dadkii uu ka tagayna adduun iyo aakhiraba allah uu sameeyo intii ka soo qayb gashana khayr dhamaanteed allah siiyo waa intaas culimada nawaanisay waxaan isku waaniyeynaa bini aadan baan nahay waa qabrigaas qof la arko ka fadar wixii qabrigaas wixii kugu anfici lahaa إلهي وحي كوو أنفع لها قفل أكو كفتر وأصلا علماء النوشي هي وعملتها صالحة هي علم قاس نافعة سومالي هدان هاي علمي هاتني إسلام كرنبا علمي إلهي سودجي والرسول تنوغو سوديبي والدنيا دون شرف كده والغا دقاقي
wax un iskool iyo balaaye iyo wax adduunyo la sheegahayo waxaa qisooyin ka mid ahaa sheekh cabdullaahi arrintiisa nin culamaha waxaa loo sheegay leh intuu carooday kolba iyo iskoolka iyo wixii dhigtaba waa gaalo nin baa usoo sheegay markaasuu yii war gaalo macaan waa un geel raacdoo tale waa wiil geel raacsatoo tale waa masaas waa geelaas la raacsaday marka diintii dhammeed waxaan uga tagnay geelaas raacsigiisi walaalayaalow halla hanuuno waxaan dadka awlaada dhalay awlaada diinta hala baro waa qur'aanka hala baro markii qur'aanku ka tago adduunyada iyada dhan waa ibar bangunaysa culumta waa saas oo markay tagaan qofku xalaal iyo xaaraan uusan waxaan loo socdaan oo halkaas ilaahay hadduu dad u daynahay nabi maxamed baa lagu day lahaa culumadeena diintooda naafica ah baa loo day lahaa intaan waxaa ka mid ahaa waxa ilaahay ku manadeysay wax adduunyaha intaasna qalbigiisa inaysan dilin adduunya jacaylkeeda inaysan dilin diintaas wuxuu ka murgitay waa un diintaas kaliya naftiisa halkaas u horay maalma dhaqaalaysa jirin ilaahay waxaan ugu dayaynaa radiisa inuu gaarsiiyo annagana ilaahay inuu nagu cafiyo intii taasoo qayb gashay khayr allah shidi khayr badan allah siiyo ilaahay raadinood adduunya aakhira allah u soo biyo waxaan ku tafadulnoo ilaahay hal yaasiin aakhirna